halkani waa xadka u dhaxeeya Pakistan iyo Afghanistan. dadyow Afghanistaniyiin ah ayaa doonaya in ay isaga huleelaan dalkooda oo ay qaxoonti ahaan u galaan Pakistan, balse Taliban ayaa gacanta ku haysa Torkham oo halka la isaga gudbo ee ugu mashquulka badan Pakistan. maalmo yar ka hor boqolaal rayida oo reer Afghanistan ah oo argagaxsan ayaa halkani isugu yimid, waxa ayna quus ka taagnaayeen sidii ay uga baxsan lahaayeen. laakiin wax u muuqday lama huraan ayaa dhacay oo ciidamada booliska Afghanistan oo aad u tiro badan ayaa isku dhiibay Taliban. xoogaga Taliban uma ogola in ay cidi gudubto. ganacsatada iyo dadka wata dhigmantariyada socdaalka oo sax ah oo kaliya ayaa loo ogol yahay in ay gudubto. dadka reer Afghanistan ayaa iyaga oo la argagaxsan waxa ka dhacaya dalkooda ayaa taagan meelo u dhow sohdimaha lagama tallaabaanka ah. saraakiisha amniga xuduudaha Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in tan iyo markii xaaladda Afghanistan ay ka sii dartay ay kordhiyeen hababka kala shaandhaynta kuwa soo galaya Pakistan oo ka walwalsan dagaal qarxa waxa ay xidhay dhinaceeda xadka ka hor intii ayna Taliban qabsan talada dalka. Torkham ayaa ahayd meesha ugu weyn ee qaxoontigu kaga soo qulqulayay Pakistan muddo sannado ah, laakiin iyada oo sannadihii la soo dhaafay rabshadaha ka socda soohdintu sii kordhayeen, dalka Pakistan waxa uu iska ooday Afghanistan. dad badani kuma faraxsana Taliban, kuwa iyagu ku nool tuulooyinka mooyiye, laakiin kuwan ka imanaya magaalooyinku kuma faraxsana maxaa yeelay uma aysan baran xanibaadahani oo kale. ku dhowaad 3 milyan oo qaxoonti Afghanistaniyiin ah oo kala badh aanay duwaan gashanayn ayaa ku nool Pakistan 10 sano. hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay ayaa ka dalbatay Islamabad in ay albaabada u furto dadka reer Afghanistan ee doonaya in ay ka cararaan xukunka Taliban, balse dawladda halkani ka jirta waxa ay ku adkaysanaysaa in aysan u adkaysan karin mawjado qaxoontiya oo ka imanaya waddanka dagaaladu halakeeyeen ee Afghanistan. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamuudin, xafiiska warqabadka ee gobolka Gabiley.